munaasabadani ballaaran ee bilan haddana boqran ee lagu shaacinayay murashaxnimada maxamed cabdilaahi jaamac bookh oo u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex ayaa munaasabadani lagu qabtay hotel Bookh ee magaalada Gabiley waxaana xalfada shaacintani ka soo qayb galay sulaadiin cuqaal xildhibaano haween dhalinyaro iyo badi labeenta bulshada magaalada Gabiley waxaana mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii kamid ahaa musharax ay dadweynuhu codsadeen oo soo qadimeen oo dadweynuhu wataan weeyaan dhammaanteena ducayno dadkana ugu horeeyo aan diyaar noqono diidayaanan maqlin waa nin dhalinyaro waa nin mutacallima xafladani habaysan ee ilaahooda loo yeelay ee lagu hogaamayna laayabadan hooskiisa ducaheegano aan hadhayn ma u hibayseen qoyska maanta maxamed cabdilaahi jaamac bookh uu ka sharaxan yahay waxaan leeyahay waa taqaaneen sida qof loo soo saaro dee Gabiley dadka siyaasiyiinta ee matalee loo doortay baan annagu reer Gabiley ahaan ma ogolin nin Gabiley marka laga doorto Hargeysa u guura ee waxaanu doonaynaa nin Gabiley maal gashada reer Gabiley ahaan markaan afkoodii ku hadlayo oo hanti gashada oo aqal kule ugu yaraan ayaan doonaynaa muhiimaddu waxa weeye maxamed cabdilaahi maanta Gabiley oo dhan buu u sharaxay idinku inaad talcada u hooseysa aad ka soo saartaan baa la idinka rabaa laakiin ninkaasi cid uu yaala waa reer Gabiley mid baan leeyahay qolada bahweynta raaxarada baaxadda leh halkan isku timi mid baan leeyahay waxaan leeyahay maanta waxa idin sharaxan aqooyahan isagoo aan tahriibin isagoo aan meel kale u dhoofin gobolka Gabiley ka soo saartay hantida inta leegayno arkayno waxaan anigu aan leeyahay codkeena aan siino maxamed cabdilaahi jaamac bookh maxamed wuxuu noo soo bandhigay inuu u sharaxan yahay golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtiga inagu soo socda maxamed cabdilaahi anagu wada shaqayn baanu yeelanay muddadii xisbiga aan joogay aad baanu wada shaqaynay waa nin guushii xisbiga qayb dhan ku leh maxamed cabdilaahi waxaan idinku dardaarayaa dadka halka fadhiya caawa sida aad u soo xusteen ee ugu timaadeen inaad codkana u siisaan ladan qiimaha badan ee murashaxnimada maxamed oo ah nin saaxiibkaya oo qiimo badan oo u qalma kursiga uu maanta maaragtay u sharaxan yahay ee golaha wakiilada qofka aynu dooranayno qof noociyay ayuu yahay maxamed waynu wada arkaynaa qofku markuu noloshiisa dhiso ee uu dadaalo ee uu bulshadiisa iyo dadkiisa wax ku soo kordhiyo ayuu ummadana wax tari karaa maxamed in la doorto sababtaan caawa ku qaadanana aan idin sheegaya nin baanu maalin meel iska soo raacnay oo wuxuu yidhi maanta waxba igu dhacay buu yidhi maxaa ku helay baan idho aniga xildhibaankii aan dooranu gaadhigii meel nagaga wada goostay buu yidhi waxaan uga jeedaa maxamed maanta wuxuu u sharaxan yahay haweenka reer Gabiley oo dhammaystiran haddaan anagu haweenka nahay xildhibaankan oo ah anu waa musharax ma odhanayo waa xildhibaan maxamed cabdilaahi jaamac bookh xildhibaan kasta waxaa dooranaya reer Gabiley baa dooranaya qola ma dooranayso ninkii yidhaahda maxamed cabdilaahi waxa dooranaya reer been buu sheegayaa maxamed cabdilaahi haddaan nahay xuqaasha gobolka haddaan nahay jifcaaqida gobolka annaga maxamed wuxuu nagu daaqay markii koowaad wuxuu noqday ninka keliya ee ganacsataa ee gobolka Gabiley u dhashay ee maalintuu hanti helay hantidiisii aan la tegin wajaaliya Hargeysa toona wuxuu ku daaqay gobolka Gabiley oo uu ku aaminay hantidiisii gudaaladkii munaasabadani ayaa waxa soo afmeeray musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex maxamed cabdilaahi jaamac bookh isagoo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxa halkan aan ka sheegi doonaa dhowr qodob oo igu kalifay musharaxnimada waxa igu kalifay markaan arkay baahida sharci ee bulshadeeda haysata aniga oo dhisaya sharciga ayaan dhisay doonaa dawladnimaduna waa sharciga iyo ilaalinta qaanuunka taas ayaan u taaganahay waxa kale oo igu kalifay inaan halkan soo istaago oo idhaahdo waxaan maanta u sharaxanahay
xildhibaannimada gobolka Maroodijeex markii aan arkay xildhibaanadii loo doortay gobolkan oo ka muuqan waayey oo aan waayey meel alla meel ay joogaan oo ka muuqdaan waxaan ka ballan qaadayaa maanta inaanan musharaxnimadan aanan ahayn nin u soo shaqo tegey oo maanta wax u soo doontay laakiinse u damqaday dadkiisa maalintaani doorataan noqon maayo nin gobolkan ka guura oo u guura meel kale iyo gobol kale waxaan xogagaal u ahay dhib kasta oo haysata iyo barkhad kasta wixii ka jira gobolkan waxaan ognahay in Gabiley ay buuxisay shuruudihii gobolnimo laakiin ay weyday cid u dhaqdhaqaaqda oo sharciga ugu hilisa waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono sida ay u heli lahayd Gabiley xuquuqdeeda ka dhiman ee ku leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolnimo sharcigu haddii uu ku shaqeeyo oo uu hirgalo waxay sharci u leeyahay gobolka uu ka soo jeedana in xuquuqda heli doonto maanta waxay Soomaaliland ku iibsamaysaa in ay hirgalaan doorashooyinkaasi oo inuu barbar istaagna madaxweynaha asxaabta baarlamaanka Soomaaliland oo dhan ay garab istaagaan sidii doorashooyinkaasi u qabsoomi lahaayeen waxaan ahay oo ballan qaadayaa nin aad la xisaabtami doontaan oo gobolka cid kasta kiisa baahan kiisa dhibaatada soo korodha inila garab taagan sharcigana inagu hilin doona waa Khalid Maxamed Taayir hal xidhaala news Gabiley